بسم الله ربي يسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مudane marweyn kusoo dhawaada koorsadeeni barashada cryptocurrency gaar ahaan qaybteeda intermediate level course. casharkeenan maanta waxaan ku baran doonaa insha Allah taala Lifecoin watch aan ku baran doonaa insha Allah taala part 3. haddaba markaasi aan iskula tagno ama aan u aragno Lifecoin watch sida uu u shaqeeyo casharkiisa saddexaad ee maantay waxaan isla tagi doonaa browserkeena halkaasi aan kasii abaqaadi doonaa casharkeena inta inooga harsan insha Allah taala ina marsha. Okay hagaag haddaba waxaanu imaanay marka Lifecoin watch ayaan joognaa qaybahani xogo marka waan soo marnay haddii aan ku soo celiyo halkaani coinska haddii aan imaano qaybahani aan hore aan u soo marnay marka maanta marka waxaan rabnaa haddii aan rabno qaybtani layout-gaani xogo waa u badan yahay marka waan iska yareyn karnaa qaybahaasi waan iska yareyn karnaa marka meelahaasi aan ka dhigan karnaa haddii aan u baahanay close aan iska leenahay intaasi kadib marka haddii aan rabno marka waxaad samayn kartaa meelahani waxaad samayn kartaa search ayaad samayn kartaa search haddii aad dhahdo halkaasi waxyaabaha adigu aad rabto aad ku qori kartaa haddii exchange-yada aad rabto waxaad leedahay tusaale trust wallet ayaad leedahay trust wallet ayaad halkaasi aad ku qori doontaa kadibna waa uu ku soo bandhigi doonaa marka hadda ma dhameystirin balse haddii aad rabto waad dhameystiri kartaa haddii kalena meelahaasi ayaad ka dooran kartaa marka waxyaabaha siga uu ku soo bandhigayo marka kadib waxaan leenahay marka trust wallet waan dhameystiri doonaa marka trust wallet ayaan leenahay trust wallet markaan dhahno kadibna waa midkaani weeyaan marka waa uu inoo soo qabtay waa marka exchange-yada oo marka waxa waaye decentralized ka ah waaye marka oo aan cidna xukumin cidna maamulin waaye qaybtaasi. Okay haddii aan rabno marka qaybtaasi waan ka laaban karnaa haddii aan ku laabano marka exchanges-ka ayaan leenahay exchanges-ka markaan dhahno kadib halkaan waxaad u jeedaa license ayaad u jeedaa exchange-yada license-ka haysta ina tusi aad dhihi kartaa marka haddii aan dhahno marka exchange-yada license-ka haysta waa kuwa waxay u badan yihiin kuwa marka centralized system-ka ku shaqeeya ay u badan yihiin waad u jeedaa marka Binance ee kamida Coinbase ee kamida Kraken ee kamida dhammaan qaybahani waa exchanges-ka haysta marka license. Okay intaasi kadib marka qaybtani balse waan arki doonaa decentralized-ka haddii aan ku dhufano decentralized ayaan leenahay decentralized markaan hano kadib waxaad u jeediin license ma lahan qaybtani sababtoo ah waxyaabaha marka walletiska iyo waxyaabahaasi dadka inta badan khatartooda wadata weeyaan marka dadkana lagu dhaco qaarkood xitaa lagu dhaco oo aan cid marka aadan arkaynin cid aad uga dacwoto aysan jirin cid aad la hadli karto aysan jirin weeyaan marka sidaa darteed marka waxaan leenahay marka waan ka qaadi doonaa qaybtaasi sidoo kale qaybtani haddii aan rabnana waan ka qaadi karnaa iyaduna sidoo kale si lamid ah marka waad u jeediin qaabkaasi waa qaybtani iyaduna sidoo kale marka qaybtani waan isla fahnay rajaynaa haddii aan imaano qaybtani marka kaliya maahan inaad exchanges-ka aad ka baari karto qaybtaasi waxaad baari kartaa coinska halkaani ku jira ayaad baari kartaa tusaale waxaan leenahay marka XRB ayaan leenahay XRB markaan aano kadib okay aan leenahay oo waad u jeediin XRB maanta waxa uu maraya qaabkani waaye marka shaqadiisa waad u jeediin market cap-kiisa ayaad u jeediin volume-kiisa market cap-ka ayaad u jeedaa all time high-giisa inuu yahay 3.92 ayaad u jeediin marka qaabkaasi ayaa u shaqeynaya qaabkani waaye haddii aad rabtana waad u jeediin marka chart ahaan waad fiirin kartaa qaabkaasi waaye marka sidaas ayaa marka aad u samayn kartaa search waad u jeediin dhammaan xogtiisa ayaad u jeediin marka XRB. Okay haddii aan ka laabano marka qaybtaasi waxaan leenahay marka cancel iska dhe kadibna coinska ku soo laabo coinska markaan ku soo laabano kadib sidoo kale qaybtani ayduna waan samayn karnaa oo baaritaan waan ku samaysan karnaa haddii aan u baahanahay haddii aan exchanges-ka aan imaano exchange-ka aan ku laabano kadibna halkaan waxaad u jeedaa sort waxaad dhihi kartaa igu habay ayaad dhihi kartaa by volume by markets by visitors waxyaabahaasi oo dhan ayaad dhihi kartaa marka by volume haddii aan dhahno waad u jeediin volume ahaan waxaad u jeediin Binance inay tahay marka number 1 oo ah halkaani waxaad u jeediin marka 24 hour volume-kiisa Binance inuu yahay 58.31 bilyan ayaa marka ku soo xoratay qaybtaasi liquidity-kiisa waad u jeediin waa 628.5 milyan waaye
sidoo kale waxaa kusoo xiga midkaani ayaa kusoo xiga oo labaad asiguna coin DCX kaasi waad ujeediin waa volumekiisa waa 49.48 bilyan waaye liquiditieska waad ujeediin waa 363 waaye kaalinta saddexaad waxaa ku jira Bybit ayaa ku jirta oo ah 13.13 bilyan waaye iyaduna 24 hours volumekeeda marka qaabkaasi aad dhihi kartaa descending waa hadda ascending iga dhig aad dhihi kartaa ascending marka dhahdo kadib xog kuma soo saarayo ciladaasi ma garanayo mar horan waan fiiriyay sidoo kalena qaybtaani berbage waxaa dhihi kartaa lagu leeyahay 30 interest-ka iga dhig aad dhihi kartaa ilaa iyo 30ka ugu hore aad dhihi kartaa waxaad dhihi kartaa 50ga interiga iga dhig aad dhihi kartaa ilaa iyo 50ka ugu sare aad dhihi kartaa lagu leeyahay iyaduna qaybtaasi marka waan iska soo yareyn doonaa 10keeda aan u deysan doonaa okay haddii aad rabto by volume ay hadda inoo dooran waad dhihi kartaa by visitoreska waad dhihi kartaa by visitors haddii aad dhahdo qaybtaasi iyaduna ma shaqeynayso inta badan marka iyaduna waan iska dayn doonaa by market haddii aan dhahno marka waad ujeediin by marketiska qaabkaani waa iyaduna sidoo kale okay by marketiska markaan dhahno marka kadib waxaad ujeediin banki swapki ayaa kamid ah V2giisa Get.io ayaa kamid ah waxyaabahaasi oo dhan ayaad ujeediin Uniswapki V2ga Ethereum-ka ahaa ayaad ujeediin KuCoin ayaad ujeediin waxyaabaha fara badan Binance ayaad ujeediin meeshaani ayaa la keenay marka qaabkaasi ay u shaqeynaysaa qaybta sortiga marka iyaduna sidoo kale haddii aan kusoo celino marka liquidity-geeda ayaan iskaga soo celin doonaa marka insha allahu tacaala marka qaybtaani iyaduna casharkeena maantay halkaan aan ku joojin doonaa waxaan rajaynayaa marka inaan isla fahnay casharka maantay insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay marka dhammaantiinaba soo dhawaada wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu